sidee la iskaga diiwaan geliyaa Google AdSense adigoo Soomaaliya jooga. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحابتي وانا اسنا بدمات نساود الانتين channel هذا كل شبتاي سبسكرايب صار هذا هم لوجتوا واد معصنتاي thank you for much and Google كاس تيجي دونا let's go. انت مركات مديدو حالكم ku qori doontaa Google AdSense si aad account uga samaysatid. Google AdSense Soomaaliya kama ogola waxa weey Soomaaliya kama jiro. Marka hoos soo bax Google AdSense I need money for sign up ayaa ku dhufanaysaa si aad account uga samaysatid Google AdSense. waxa ku dhufanaysaa markaa get started. dad u dalbanaysid website hadaad u dalbanaysid YouTube waxa weey waxaad ogaanaysaa tusaale dalka aad dooranayso ha ahaado dal aad taqaan magaciisa mise ka noqon dal aad isku qaldid magac. Okay, get started ku dhufanaya Gmail aan ku soo kacinaya cusub isla soo wanaag. Okay, inta hadaad website leedahay website-ka gelinaysa magaciisa. hadaad website leedahay oo rabtid YouTube dalbatina linkiga soo qaadanaysa YouTube-ka linkigiisa ka soo qaadaysa qaybta dambe aboodka ayaa linkigiisa ka soo qaadi doontaa. tusaale ahaan hadda YouTube-ka inta ku sii gareynaya linkigana soo copy garanaysa oo waxa leedahay copy linki oo soo copy garanaysa. markaad linkiga soo copy garistid halkaana soo gasho doontaa insha Allah. oo halkaas waxa your site meesha ku qoran tahay macnaheedu waxay tahay website hada website leedahay wax weey waa soo gali kartaa website-ka soo gelinaysa. hada YouTube leedahay waa soo gelinaysa labadaba hada la rabin waxa leedahay I don't know oo wax weey waad iska bolo garanaysa. halkan ku saartay country wadamada ka dooro tusaale ahaan wadanka lagu siiyay ee information-ka aad ka haysatid ayaa gelin doontaa. tusaale ahaan waxaan dooranaa United Kingdom marka doorto sharciga Google AdSense u yaalan iska akhriyo terms and condition marka waxa la save and continue marka dhaxno alright labada calaamad waxa waay message marka waa leedahay oo hadaad message-kan u sii deyn kartaa hadii kale marka waxa leedahay save and continue. Google AdSense already account waa ka samaysatay oo waxa weeye Google AdSense account uu kugu samaysan yahay hadda kaliya waxaad baahan tahay address-ka inaad hagaajisid oo waxa weeye oo xagaan ka qoran tahay mataqaanaa enter information ayaa ku dhufan doontaa oo si aad ugu xirtid mataqaanaa address-kaaga oo loo soo complete gareeyo hadhowti marka halkaan address-ka ku xirtid site-kan waa ka hagaajin doontaa qaybta address-ka. marka hadda wuxuu soo saaray dhowr qodob uu soo saaray waxa dhan waad iska fahmi kartaa. marka qaybtan ugu horeysa waxa gelin doontaa magacaaga inta wax ka dooranaysa individual yani shakhsi ma ahay address line city post code-ka lambarkuna waxa weey waa optional oo waxa weey aad iska dhaaf kartaa. marka Google AdSense sidaas aad account uga samaysan kartaa. qaybta dashboard markaan ku soo laabano Google AdSense-ga waxa jirta marka site-iska waxa laga hagaa hadaad website-kaaga habeenaysid waxa weey ama YouTube-ka oo kale YouTube marka xaysiinta la soo saaro waan ka sameeyay doonaa laakiin website-ka marka xaysiinta site-iska la qaadayo yani waa ka soo sameeyay already hore u yaalay. marka hadda inta marka tagsi marka xaysiinta qaybta ku qortaa address waxa weey website-ka marka ku jiro already oo xaysiinta ay on tahay oo aad u shiidaysid waxa weey halkaas code ka qaadaysaa adhoona mataqaanaa HTML-ka website-ka marka ku soo baasti garanaysaa. ka waa sida Google AdSense sidaas aad maartay uga samayn kartaa account code kuntu intaan yaala oo maartay qaadaysid oo kana public ID-ga ku siiyeen. maadaama uu yahay Gmail cusub oo aan la rabin AdSense-ga waxa sameynaya inaan close gareeyo aan iska xiro. si aan iska xiro waxaan tagayaa saddexdaas calaamadood waxaan ka sii tagayaa meesha ku qoran tahay settings waxaan ka sii tagayaa setting-ka mataqaanaa marka waxaan ka sii tagayaa access. okay waxaan ka sii tagayaa information setting personal setting alright marka yani waan kala shaqeyn doonaa insha Allah
account information waaye cafwan maaha personal oo yani personal markaad tiraahdo xogtii waxyaabihii aad maaragtay ku buuxbuuxso halkaas kaaga soo saari doonaa laakiin account information markaad tiraahdo tus xogta weeye. Okay, markaan rabo markaan iska xiro waxaan sameyn doonaa anigoo iswaalin waxaan sameynayaa mataqaanaa inaan dhaho mataqaanaa close account-ga aniga close garee marka close aan ku dhufanayaa oo gabigiisa waan xirayaa hadhowti sababta gmail-kan yar walaalkay iskale oo YouTube uu samaysan yahay markaan ay timo dhibku yimaado mar rabo calaamadda sa check saaraya waxa la waan aqbalay ay geli intaan waxa ka dooran doonaa mataqaanaa website ama waxa ka dooranaya order markaan waxa leeyahay marka asxaabta gmail sidaas baan maartay Google Assistant gmail-kaaga aad ugu xiri kartaa adeegta waddanka ka haysatid sidaas aad ugu hagaajin kartaa marka wax weyn ma aha insha Allah fiidiyaan fiidii koonta ku mid doona waxaan tagayaa intaas iyo nabadgelyo.